mararka qaar hal fikrad ayaa bedeli karto gebi ahaan noloshaada. Ku soo dhawow taxanaha Faynuusta, halkaasi oo aan ku shidi doonno iftiin yar oo kaa caawinayo fahamka naftaada, noloshaada iyo qalbigaaga. Qayb walba waxay xambaarsan tahay fariin kooban oo kuu noqon karta hagahaaga maalinlaha ah. Haddii aad raadinayso deganaan, faham iyo isbedel dhab ah, meesha saxda ah ayaad joogtaa. asbaabaha keenayo qofka inuu daalo number 1 waxaa ka ah culays joogto ah oo qofka uu la nool yahay. culayska waqti badan oo soo socday culayskaas waxa ugu badan waxaa waaye normal anaka asoo normal wax weyn maba aadaynabo. mas-uuliyaadkaaga fiirso, subax kasta hooyada soo kacdo dadaalayso rootiinkeeda cunto iyo cunto karin iyo maxaa la dhahaa nadaafad iyo maxaa la dhahaa ilmo ka fikir iyo maxaa la dhahaa dhaqaalo, biilka kala maareey, deenta kala xali, ayuuto, mustaqbal, intaas bas ku wareegsato oo rootiinkeeda ugu jirin waxna siina la dhaho oo maskaxdeeda fiir mobilkan off aa la dhahaa waa la damiimaho off iyo on sababta loo sameeyey maxaa waaye inuu nastumo. haddii maskaxda off aadan siinin oo si dhayli aysaa hadda rootiinka kugu sheegay saakaa soo kacday, quraacaa samaysay, nadaafadaa gashay, cuntada qadadiyaa karisay, ilmihiyaa kala dirtay, nadaafada guriga, waxbarashada caruurta, shaqadaadaa aaday ama dhaqaalaha ka fikirtay, markay soo laabteen ilmihii iyo rootiinkoodii naftaada waxna siina la dhaho aa u samaysay ama maskaxdaada aa ku damisay ma jirto maaho. systemkaas culayska wuu soconaa. chronic waxaa waaye culays joogto ah, marka dambe qofka wuu ku daalaa. qodobka labaad waxaa waaye waxyaabaha keenaya daalka shucuureed, bixin badan iyo helid yar. qofka ka badan asna waxba aa helin, adiga waxaa tahay hurto, wax kasta waa hurtaa, ilmahaaga wax waa u hurtaa, dariska wax waa u hurtaa, dadka dhibaataysan waa u hurtaa, oo wax fiican eed waaye inaa wax hurtid, laakiin macnaheeda ma aha inaa adina wax hilmaantid oo adigana xaqaaga yacni aad ka tagtid. waxaa siisaa dadka kugu hareereysan, dadka kuugu dhow wax walba ay mudan yihiin, laakiin adiga cid kaa fikirto iyo cid kuu joogto ama cid kusoo xasuusato ma jirto. taas marka maxay keenaysaa qofka in uu asigana istinzaaf ku dhaco oo daal ay ka imaato. okay, qodobkeena saddexaad waxaa waaye dareenka la qarinaayo. waxaa lagu dhahaa waxaas wax laga hadla ma ahane, waxaas ha sheegin, waxaas wax ka badanaa dadka haystaan. yaa maxaa dareemaysaa qofka markii la dhaho inuu ooba sheegi karin, cabiri karin, waxaa dareemaya maba aqaanibo. yaa waxyaabaha ugu daran oo la qariyay waxaa ka mid ah gabaraa qalad waxay ku arkeen ninkeeda ama qofay wax ka tabanaya ninkeeda yuu noqon ama labaad isla dhalata ha noqoto ama saaxiib ha noqoto, way qarinay. qofkii wixii ay ka tabanaysa ma u sheegayso. xanaaqaas iyo qarintaas dareenkaas laqday oo qarisa adee culus kugu noqonayaan. murugaa dareentay adoo murugsan waxaa iska dhigaya qofaa murugsanan waa qosle maanta oo dhan waxaas ilinta waa laska titiraaye oo intaadana gurigaa lala galaa. sorya muudaa ku jira baa iska hadlaya fartaa iga dhacday. marka dareenada la qarinaayo waxay noqdaan kuwo aruuraayo oo hadhow qofka daalay ku noqonaya, qofka hal mar u qarxaa. marka qodobka afraad waxaa waaye qofka inuu ku nool yahay xiriir toxic ah ama calaaqo toxic ah. calaaqada toxic meel walbay ka imaan kartaa. waxaa toxic xiriir ee markaa tacriifinayna waxaa waaye qof tamarta kaa qaadayo ama energy kaa qaadayo. markaa agtagtid qofkaas energygaagu qaataa oo murug adiga dhan si kale adoo ahaa kasoo tagtaa. calaamadaha lagu garta maxaa waaye qof mar walba haddaa la joogtid ku dhaliilaayo, qof markaa u tagtid ku liidaayo, qof had iyo jeer yacni isku dayayo in yacni uu kaa jijibiyo oo kale. iyo dadka maanta dhan markaa ag fadhisid calaacal iyo problem lay kaaga sheekeynayaan oo positive dhan noloshooda ku jirin. noloshooda waa hoog iyo ba iyo balaambal. maanta haddaa u tagtid biri haddaa u tagtid kees kalaa furan.
wax yididiile iyo hami iyo han iyo xal iyo ma hayaan maalin kasta waxay kaa tusayaan daaqad madow marka dadkaasna ayagana sidoo kale qodobka shanaad hadaaya si fiican u sheegna waa filashada badan iyo inaa qof maanta dhan perfectionism ku adag wax kasta inay perfect noqdaan aa rabtaa guriga nadaafadiisa perfect inay noqdaan ilmaha barbaarinta perfect xitaa yacni hadalkooda xataa qaabka u hadlayaan inay stop noqdaan waxbarashada shaqada meel walba waxaa ka dhex fiirinaya inay perfect ahaadaan yaa perfectionismka waxaa noqon kara ilmo bisi xataa maa asi shaksiyadiisa oo kale tusaale ahaan hooyo rabta inay ayada noqoto hooyo fiican xaas fiican caruur fiican dhasho shaqo fiican haysato dhan walba waxay ka rabtaa inay perfect ka noqoto adi hal qof aa tahay hal qof oo isku dayaayo wax walba inay perfect u wada noqdaan daalaa ka imaanaya runta haddii la sheego mogtaa biniaadan aa tahay biniaadan aa tahay macnaheedana waxay tahay waxna waa qalbee waxna waa saxee kamaal mar walba ilaaha iskale dhammaystirnaanta adi shaqo kuu taala maba ahanbo itqaanaa leedahay inaa wax sugtid dadaashid laakiin inaa stress isku saagtid ma aha qodobka lixaadna waxaa waaye nasasho la'aan iyo daryeel la'aan naftaada inaadan siinin waqti maalinkii oo dhan haddaa mashquulsan tahay markaa firaaqo heshane telefoon aa ku dhigan tahay waqtigaaga waa buuxisay waqti yar oo aan siine ah maadan helin qodobka toddobaad waxaa waaye taraa'umo ama dhacdo xanuun badan oo kugu dhacday oo hore kugu imaatay oo aan la xalinin waxyaabo hore oo culays kugu ahaa oo kugu dhacay oo aadan ka gudbin oo weli aawadatid aa jiraan xanuunkaas hore wuxuu ka imaan karaa qoyskaaga ama guuruu ka imaan karaa ama xadgudub ama hadal lagugu dhaawacay afartaas meel buu kaaga imaan karaa okay waxaa noqon karta oo kale gabar ninay kala tageen ama nin xumeeyey ama waalidkaaga oo dhintay ama ilmo kaa dhintay ama furiin ama waxay noqon kartaa oo kale qof kugu xadgudbay qof hadal xun ku dhahay ama hadal aadan ka filaynin khiyaano lagugu sameeyey adiga dhan walbuu dhaawac noqon karaa xitaa wuxuu noqon karaa dhaawacaas wax adiga aanan ku quseyninoo dad kale ku dhacay laakiin adiga goobjoogaa ka ahayd second day kugu noqonay taraa'umadaas way kuusoo gudubta macnaha hortaadaa nin lagu dilay ama cidda dariskaa qof ka dhintay taraa'umada waa ku jirtaa ciddaasay taala qaadatay okay qodobka sideedaad waxaa waaye kelinimada dad badan way joogaan laakiin haddana يعني waa lala joogaa keligood ma aha laakiin haddana keli inay yihiin oo kale sidoo kale dad badan waxaa laga yaabaa waa waxay bulsho ku dhexdooda guriga waxaa laga yaabaa 10 qof inay ku nool yihiin laakiin hal qof ay iska fahansan yihiin ku jiro keli leeba qofkaas wax ma dhaamo macnaa qolof ahaana loola joogaa tusaale waxaa noqon karto qoysaa leedahay ama reeraa ku dhex jirtaa laakiin cid ku dhegaysato ma jirto qofkaas wuxuu dareemaa inuu keli yahay qodobka sagaalaadna waxaa waaye maskaxdaada inaa wax badan gelisid wax badan waxyaabaha geliya maskaxdana waxaa ka mid ah scrollinka badan social mediahaas maanta 15 fikradood dhac waa gedisay naag cunto ka hadlaysaa fiirisay waa gedisay maanta maxaa la dhahay dagaalaa wuxuu ka dhacay baydhabo waa sii gudbisay ninaa maanta meesha isugu dila waa gudbisay laba naagoo la isla qabaa social soo fadhiisteen jug waa gudbisay gabaraa la kufsaday jug waa gudbisay haddana maxaa la dhahaa dhar inta lagu xayeysiinoo jug waa gudbisay waxa information overloadka ugu badan oona haysto scrollingkona u imaadaa qofkaan maskaxdaada aa u jeedid haddaa wax gelinaysid wax anfacaa inaa gelisida ku fiican buwaag badan akhri cashiro badan ku diyaari laakiin dhacdooyin badan oo naxdinle maalinlaa loo arkaa maalinle ee social media u yaalaan haddaa dhacdan arkinne يعني waxyaabo oo maxaa la dhahayo oo maskaxda kaaga dhedheelaya maanta dhan caqliga ku ciyaaraya caqliga dadka zaaid loogu ciyaaraa okay qodobkaas qodob waa social media badan oo la isticmaalayo maskaxdaada uu buuxiyo qodobka labaadna waxaa waa fikirka badan qofka maanta dhan uu fikiraa wuxuu ka fikiraa mustaqbal iyo nolol uu weli gacanta ku dhigin oona ogeyn xitaa inuu uu gaari rabo fikirka badan qofka maanta dhan uu fikiraa ama baasta ha ka fikiro wax lasoo dhaafay ama wax soo socda ha ka fikiro ama maanta dhan wuxuu ka fikiraa dhibaatooyinku soo dhaceen sababta ay ugu dhaceen inuu isweydiiyo waay saas lagu dhahay waay waxaan ay kuugu dhaceen waay dhibaatadan kuu soo gaartay maxaa adigana sii malihid miya hooyadaa ma kusoo korinin aabaha wuu ku xumeeyey
ninka isqabteen wuu saasuu kugu sameeyey dariska hadda ka hor saana yeeleen saaxiibtay way i qiyaantay wax hore oo qofka oo energy leegsi qaadayo ma ahane xal ah u ahayn inuu ku fikiro iyo waxa soo socdo labadaba isbarbardhig qofka inuu maskaxdiisa ka buuxiyo maanta dhan dad kaloo isla barbardhigaa isla barbardhigana ayadana maskaxda overload ku sameynaa qofka social media ka arkay ama qof kaloo noloshiisa arkay qofkaas adiga intaa aragtaa ujeedaa inta u qarsoonne ilaaha kaa qariyay moogtahay adigana inta lagaa arko qofkaas ujeedaa inta kuu qarsoon way ku qarsoon tahay waxa cadaalad ah qof kasta in la siiyo wuxuu ku fiican yahay iyo wuxuu ku xun yahay qofkaas aa isla barbardhigaysid wuxuu ku fiican yahay haddii aa ku aragtid adigana waxaa ogaataa wuxuu haysanin inaa haysatid qasab waayabo wax ka maqan inaa adigana haysatid marka isla barbardhiga ayadana maskaxda uu qofka ka dhigaa overload inuu wax badan ee maskaxdiisa qaado overload waxaa laga wadaa maskaxda tankeeda waxaa ahayn markuu saaran yahay culays badan markii la saaro oo maskaxdana ay shaqaynayso qodobkeena 10aad oo ah qodobka ugu dambeeya waxaa waaye xuduud la'aan waxaa waaye inaan maya dhihi karin maanta waa lagu dhaliniyey meel isquraaceenaa lagu dhehe maragtid inaa meeshas aadid mayna ma dhihi kartid qofka maanta dhan wuu iskaa dowreejinaa wallaahi haa hoolaa soo kala jeejeedinaa hooleera isku aadinaa maasaa yaala qofkiina waa iskula go-aysin mana rabtid inaa aadid mayna ma dhihi kartid qaabaa may u dhexlidna ma haysid waxaa maanta dhan waxaa dhahay qofka inuu uga xumaadaa diidaa qofka waa ilaalinaa qofka maanta loo isoo bixin maxaa sameeyaa adigana waxaa laga yaabaa hoolo badan inay ku yaalaan ama xitaa aad diyaar u hayn inaa maalinkaas baxdid qofka adigoo xumaan ama akhlaaq xumo kula dhaqmaynin aa maya dhihi kartaa qof walba oo wax ku weydiista haddaa haa dhehaysid waxaa ogaataa xirfad muhiim ah kaa maqan xuduud la'aan inaad tahay ogow qof kasta oo wax ku weydiista haa qof walba oo ku yimaado haa qof kasta haddaa taagan tahay haa oo maya ee kugu adag tahay waxaa ogaataa xuduud ma lihid xuduud hadduu qofka laheenne cid kasta way soo geli kartaa cid kasta way ka bixi kartaa wax kastana waa lagaa samayn karaa waddan aa xuduud lahayn waa waddan ahee badbaado iyo amni aa lahayn macna sharcina maka dhisan waddankaas moogtahay haddaa xuduud lahayn meesha ugu muhiimsan xuduud in la iska dhiso waayo cid kasta iska soo geli karto cid kasta ka bixi karto wax walbana waa lagaa samaysan karaa xuduud inaa lahaatid waayo okay calaamadaha marka aan usoo gudubno 10 qodob aa soo sheegnay calaamadaha lagu garto qofka inuu maskaxiyan u daalan yahay calaamadahan iska fiir haddaa isku aragtid waa daalan tahay waxaa u baahan tahay safarkaaga bogsashada inaa bilaawdid iyo qaabka u nasan lahayd calaamadaha waxaa u kala qaadaynaa kuwa maskaxiyan waa u dareemaysid kuwa maskaxiyan aa u dareemaysid marka maskaxda ee daasho waxaa waaye fikir badan qofka maskaxdiisa ma wadanto sariirta markuu soo koro seexo isdhaho filina u shidmaayo musalsal maanta dhan wuu fikiraa qodobka labaad waa qodob aad oo caan u ah walwal joogta ee qofka martiya ku imaanaya haddii la xataa waa walwalaa walwal zaa'id ah qodobka saddexaad hilmaam badan meesha wax dhigi qofku waa hilmaamaa qodobka afraadna go'aan qaadasho adag qofka go'aan maba qaadan karo way ku adag tahayba go'aan dhan inuu qaato tusaale hooyadan way soo baxday suuqaa tagtay inay soo adeegatay rabtay waaba hilmaamtaba wax badan ee soo adeegan lahayd maskaxdeeda way buuxdaa hadhow guriga markay imaato waxay ogaanaya buu hadafka ugu muhiimsanaa ee maanta suuq u aaday waaba kasoo tagtay calaamadaha shucuureed maxaa waaye marka oo dareen ahaan ayagana loo dareemayo qofkan wax maba dareemayo dareenku qalbiga laga dareemi lahaa wax uu dareemayo maba yaqaanabo madnaan maa la dhahaa ama eber emptiness uu gudaha ka dareemaa gudaha eber inuu ka yahay oo kale farxad la'aan niyad jab iyo xanaaq fudud ilmaha wax yariis sameynaya waxaa lagu xanaaqin oo kale albaabaa la furay albaabkaas xirid buu u baanaa hooyadii bismilla degdega u xanaaqayba albaabkuu furta kanaaca soo galaysabo kanaacadii cunugaa muhiimsan qodobka labaad waxaa waaye wax yara ilmihii ka dhacaayo oo hooyadii automatically hadhow isla yaaba waxay dhahay wax laga xanaaqa maba aheene maxaa u xanaaqay waa shaleynay haddana shaleeya usii raacsan waxaas maxaa cunug ugula qayliyay bal waxaas wax laga hadla ma lahane okay
calaamadaha marka taas aad kasoo tagno waxaad dareemaysaa qof go-an inaad tahay oo wax badan ay ka maqan yihiin ama qof maqan inaad tahay dadka waa la joogtaa laakiin haddana mala joogtid maqana jooganaad tahay qofku waa sheekaa lagu sheegoyaa sheekada haafaa ka maqashay haaf kale ma ogid aamuskaaga wuu badan yahay fikirkaaga wuu badan yahay xanaaqa iyo dulqaad la-aanta dulqaad yarida su-aalaa marmarka qaar dadka weydiinaya su-aasha markaa weydiiso su-aashooda ka xanaaqaabo buuqa waa ku dhibaa laba cunug hadda isla hadlaan ama qof yar oo qeeliyo dhagaha qarxi rabaan qofka dhaa bis waay wax yar buuq ma maqli kari macnaha wuu dhibaa madaxa xanuunaya okay daalka joogtada ah marka waxaa waaye qodobka shanaad calaamadaha waxaa kamid ah daal joogto inuu qofka uu dareemo tamar la-aan uu dareemayaa jir ahaan culeys u dareemaya wax qabadasho la-aan wuu isqasbaa maanta oo dhan qofka asoo energyin tabar haynin saak markuu sus usoo kaco meesha energy qofka uula soo kici lahaa daal ula soo kacayaa asoo seexday calaamadaha jirka ka muuqanaya marka maxay noqonaya madax xanuun joogto ah caloosha qofka calool xanuun inuu qofka isku arkaa murqihiisoo toogmo ama taagmo oo murqa adeeg murqahaasas murqaha yani inaad sas marka loo taabto yani adeeg inuu ahaado maxaa la dhahaa murqaha way taagmaamo way tugmaan murqoo adkaado hurdada qof تشنجين يعني قفك أنا كده ريما مركز زيادة مركز inay taagan yihiin hurdo xumo iyo si fudud inuu yani u xanuunsado hergaba ugu fudud qofkaan hergabka bishii 2 mar 3 mar uu kasoo dhaca sababtoo ah immune systemkiisi dhan dhulkaa la geeyay sababta difaaca jirkiisa qofka markuu xasilan yahay difaaca jirkiisa kor u kacaa markuu stress badan qabana difaaciisa wuu isburaa waxaa dhacaysa marka cudur walba oo u nugul yahay qofkaan inuu ku dhaco qodobka 7aad waxaa waaye dembi uu dareemaa qofkaan maanta oo dhan uu is eedeynaa maxaa sidaan u noqotay adi sababta ah maxaa la dhahay maalin walbo oo qof fiican ma tihid sidaan inaad ka fiicnaatid waaye يعني dembi iyo maanta dhan xaalad dembi uu ku jiraa inuu dembi dareemayo hadduu daalan yahay xitaa nafsadiisa ma ogolo ma aqbalsano daalka uu dareemayo qodobka 8aad calaamadaha waxaa ka mid ah ka fogaanshiyuu sameynaa qofkan inuu ka fogaado dadka mas-uuliyaadka iyo wax walba oo jecel yahay waa calaamada ugu caansan midaan waa laisku soo baxaa haddii la dhaho ama meelaa laisku imaanaa cagajiid ma dhahdaa qofkan banaan dhan maba soo aadi karo dad mala kulmi karo dad marabiyo dadkoo dhan waa ka ordaa mas-uuliyad markay imaatana waaba dhib ay ku tahay mas-uuliyad tii naftiisa xataa way ku adag tahay waxyaabihii uu jeclaa xitaa ma jeclo ma samayn karo ya wuxuu ku raaxaysi jiray farxad uu ahaa hadda ma rabo inuu sameeyo hiwaayaadkaa laga wadaa marka qodobka 9aad waxaa waaye ka baxsasho qodobka ugu dambeeya waa escape inuu sameynaa qofkan inuu xaalad walba inuu ka baxsado oo rabaa qaabka ugu baxsanayana waa qaab badan qaabkoo sameynaa marka meesha oo dad badan ay ku kala harayaan waay waxaa isku dayaysaa dareenka ku heesto inaad ka baxsatid qaab alla qaabka ugu baxsan kartid 90% waxay sameeyaan telefoonka uga baxsanayaan mobilka soo qabsanaa scroll inuu sameynaa soo xaaladan ugu gudbo macnaha u hilmaamo adduun kale uu fiirinaa maanta oo dhan meesha ugu baxaa tiim labaadaa jiro tiimkaas labaad hurdo ugu baxsadaan habeenkii oo dhan waa dhafraa subaxii oo dhan waa jiifaa tiim saddexaadaa jiro tiimka saddexaad waxay sameeyaan waxyaabo kale ay ku mashquulayaan badanaa tiimkaas waxay adeegsadaan balwad ya waa meelaha ugu fudud oo dhalinyarada ku baranayaan balwad oo kale waxaa lahaa kaala shiishada waxaas laisku hilmaamsiiya adduunkaas stress kale iskaga bixinaa beenbeenaa lagu soo gelinaa ama waxaa lahaa meel heblaayo cunugii aa dhisneen ama qofkii aa dhisneen iimaan ahaan u dhisneen meeshasoo kugu dhaafe daawo iyo drag meeshasoo ku baranaa tiimkaas waxaa soo raacaya tiimka balwad kale leh laakiin balwadooda waa wax ay ayaga isku mashquulinayaan wareega isku mashquulinaa maatan hooyadaas waxaa laga yaabaa guriga makaantaa wareeg xaafadaha dhan ay soo martaa lug ay kusoo martaa ama cidaha dhan ama aroosyada ama maxaa la dhahaa xafladaha waxa isku mashquulinaya marka